dalalka Jarmalka iyo Ruushka ayaa sheegay in tiradii ugu badnayd ay maalin kaliya xanuunka COVID-19 ugu dhinteen dalalkoogaasi. dowladda Jarmalka ayaa sheegtay in 24 saacadood ee u dambeeyey 410 qof ay u dhinteen xanuunkaasi, taasoo ah tiradii ugu badnayd ee tan iyo intii xanuunku u gaadhay dalkaasi. ilaa iyo iminkana 14,771 ayaa la xaqiijiyey in xanuunkaasi COVID-19 ay u geeriyoodeen. Ruushka ayaa sidoo kale tirada dhimashada COVID-19 ay kor u kacday. wariyaha v o ed ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan nooga soo diray. ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa toddobaadkan sheegtay in 16 barasaab ee maamul goboleedyada dalkaasi Jarmalka ay isla qaateen in xayiraadaha dalkaas saaran la sii wado ilaa bisha Disembar si loo yareeyo fiditaanka xanuunka COVID-19 oo farabaas ku haya guud ahaanba dalkaasi. dhinaca kale ee dowladda Ruushka ayaa sheegtay in ay toddobaadkan maalin kaliya diiwaan geliyeen dhimashada 507 qof oo u xijaabtay xanuunkaasi. 37,538 qof ayaana ilaa iyo iminka COVID-19 ugu geeriyooday dalka Ruushka. dad ka badan 23,700 oo qof oo cusub ayaa cudurka laga helay toddobaadkan. guud ahaan dadka uu ku dhacayna waxa ay ka badan yihiin 2.1 bilyan oo qof. Ruushkuna waa dalka shanaad ee tirada ugu badan laga helay xanuunka COVID-19. Maxamuud Carab oo ah wariye madax bannaan oo degan magaalada Kiev ee dalka Ukraine ayaa iga warramay halka ay xaaladdu marayso. Ruushku walaal waxa uu xaqiijiyey tirada ugu badan ee uu haleelay COVID-19 waxaanu gaadhayaa 25,487 kiisas oo ijaabi ah ama positive ah, iyadoo dhimashaduna ay gaadhayso 550 qof maalintii inay u dhimanayaan cudurkaasi faafa ee COVID-19. waxa uu caabuqani uu badiba wada haleelay xubnihii sharci dejiyayaasha dalka Ruushka ee baarlamaanka, sida wakaalada wararka dowladda Ruushku ee taas ay kusoo waramayso, iyada oo soo xigatay Vyacheslav Volodin oo ah afhayeenka aqalka hoose ee baarlamaanka Ruushka, isagoo sheegay wadar ahaan in 137 ka mid ah 450 xildhibaan uu cudurkani ama caabuqani uu haleelay, waxaana badi ahaantood lagu daweynayaa cusbitaalada dalka Ruushka. dhinaca kale wadamada Yurub ee ka dhow Ruushka, dalka Croatia ayaa tiradii ugu badneyd xanuunka laga helay 11,600 ayaana la xaqiijiyey inay xanuunka qabaan. dalka Hungary oo aan ka fogeyn Croatia waxaa sii badanaya dadka xanuunka loo dhigayo cusbitaalada qaybaha dadka u baahan qalabka dadka ka caawiya neefsashada, iyadoo 7,718 qof ay iminka ku jiraan qaybahaasi. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.